السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواad saaxiibayaal kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kale oo cusub. Saaxiibayaal, ma maqli jirteen qof ayaa dhintay kadib wuu soo noolaaday. Horta si caadi waan ognahay qof hadduu mar dhinto ma soo noolaado, laakiin mararka qaar waxaa laga yaabaa qof dhintay oo la dhaqay la karfanay inuu soo naaxo. Waxaa laga yaabaa qof oo qabriga loo waday inuu soo kaco, qof loo maleeyay inuu dhintay familkiisa ay tacsi dhigteen la arkay inuu dib u soo baxay. Waxaa u maleynayaa waxyaabahaas inta badan way dhacaan, qaarkiinana way arkeen. Marka saaxiibayaal, qisadeena caawan waa qiso noocaas oo kale ah. Marka idinka hordhacayo idinka ayaa wax walba dhagihiina ku maqli doono. Marka saaxiibayaal, qisadeena caaw waxay ka dhacday dalka Ciraaq sanadka markuu ahaa 2019. Ciraaq dhalinyaradii joogtay waxay sameeyeen mudaharaadkaasna waxay ku dalbanayeen in ay shaqo helaan, sababtoo wadankii ayaa wuxuu noqday shaqo la'aan. sida aad ogtihiin Ciraaq ma ahan wadan suuta toosan, natrkiisa carqaladi iyo buuq ayaa ka jira. Marka waxaa ka dhacday shaqo la'aan iyo dhalinyaradii inay shaqo la'aan ahaadaan, in ay dhammaantood wada fadhiyaan. Marka dhalinyaradii ayaa kacday, waxayna u kaceen si ay shaqo u helaan. Mudaharaad weyn ayaa dalka ka dhacay. Marka wiilkan 18 jirka ah isagana wuxuu ku jiray dadkii mudaharaadka sameeyay, laakiin inta uusan mudaharaadka aadin ka hor hooyadiisa iyo aabihiisa raali kama aysan ahayn inuu mudaharaadka aado, sababtoo ah wuxuu ahaa halka wiil ay qabeen. Waxay dhaheen ha bixin wiilkeena, anaga adeeg kaliya ku qabnaa, haddii aan ku weynana bis waay, sababtoo ah mudaharaadku wuxuu ahaa mudaharaad weyn, xabadu way ka dhacayeen. Marka waa ogtiin mudaharaadyaalka noocaas oo kale dad badan ayaa ku dhinto, dad ayaa si ku noqdo. Marka waxa waaye wax oo aad iyo aad halis u ah. Marka wiilka mudaharaadka ayuu ka qayb galay, iyadoo ay waalidiintii celinayaan ayuu wiilkan baxay. Wuxuu dhahay markaan waxaan taaganahay heerkii ugu dambeeyay, waxaan rabaa anigan in aan xamaasadeeda muujiyo. Kadib waalidiintii waxay dhaheen waaya iska bax, laakiin waxay dhaheen is ilaali. Wiilkii wuxuu aaday mudaharaadkii waa la galay. Ugu dambeyn mudaharaadkii wuu dhammaaday. Waxaa la gaaray haweenkii, dadkii waxay kala aadeen guryahooda, laakiin wiilkan ma uusan soo laaban. marka nolol iyo geerin wax lagu haayo ma lahan. dadkii markii ay soo laabteen, hooyadiisii aabihiisa wax badan ayay raadiyeen, way waayeen. kadib asxaabtiis ayay weydiiyeen, asxaabtii waxay dhaheen anaga ma arag. dad kale ayay weydiiyeen, dadka qof ka mida ayaa wuxuu u sheegay in uu wiilkooda arkay, laakiin wuxuu dhahay wiilkiina wejiga ayaa xabad ugu dhacday oo markaa ayaa igu dambeysay. kadib waalidiintii aad ay u naxeen, waayo markiiba way u diideen in uu baxo. waxay ka cabsanayeen in ay xabadihii waxaas ay ku dhacaan. sidaa ayaana wiilkaa ku dhacday oo xabad ayaa weji ugu dhacday. marka ninka informationka ayuu siiyey. kadib waxay bilaabeen in ay meydka wiilkooda raadiyaan. meel walba ayay ka raadiyeen, isbitaal walba way aadeen, way ka raadiyeen. ugu dambeyn mid ka mid isbitaalada ayay ka heleen. waxay heleen wiilkooda oo ay wejiga xabad ugu dhacday si loo sheegay. wejigiisa inuu isbedelay xitaa aan la aqoonsan karin, laakiin waxay aqoonsadeen dhirirkiisa, qaabkiisa. wiilkooda astaamihiisa ayay arkeen. kadib waalidiintii markiiba ay ka murugaayeen, isaga keligiis ayayna haysteen. meeshii ayay ku ooyeen oo ay ku murugoodeen, laakiin wixii qoran ayaa dhacayo. wiilkooda ayay soo wateen oo way iska aasteen. kadib markay aaseen, waxay u dhigeen tacsi oo 3 maalin ayay wiilkooda tacsi u dhigeen. maalinta koobaad, maalinta labaad iyo maalinta saddexaad. 3 maalin markay tacsi u dhigeen kadib arrintii xoogaha way ku dambeysay, laakiin sidaa ayay si iloobeen oo qadar ayaa ku dhacday. wiilkoodana sidaa ayuu u geeriyooday. waalidiinta waxay joogaanba. kadib qof ayaa u yimaaday, wuxuu dhahay wiilkiina muslim wuu nool yahay. waa idinkii loo saaxiib alcafan, wiilkan magaciisa waxaa la dhahaya muslim. wuxuu dhahay wiilkiina muslim wuu nool yahay, aniga ayaa soo arkay. kadib waalidiintii way naxeen, way yaabeen. waxay dhaheen see camal wiilkeena anaga ayaa soo aragnay, anaga ayaana gacanteena ku dugnay, wuu nool yahay maxay tahay? hooyadii aabihii way aamini waayeen, laakiin ilma adeeradiisa ay u direen meeshii loogu tilmaamay in uu joogo. ilma adeeradii ay u direen. marka meesha wiilkan uu joogo waxaa la dhahay meel waxa waaye isbitaal waaye. dadkan
markii mudaharaad uu dhaco ama wax uu dhaco dadka qaar maaragtay oo aan aqoonsiga haysan, qof walba aan aqoonsiga haysan iyo waxyaabahaas meesha ayaa lagu aruuriyaa. sababta qofka aqoonsi ma haysto meel lagu hagaagi iyo wixii ma lahan. marka wiilkan dadka ayuu ka mid ahaa oo meesha ayaa lagu hayay ilaa ay familkiisa iyo reerkiisa qof yaqaan uu ka yimaado. marka ninkii wuxuu wada ilmo adeeradii oo wuxuu geeyay meesha uu wiilkooda joogo. kadib markay meesha tageen waxay arkeen muslim, waaba muslim oo halkan taagan. kadib aaday u yaabeen, maxay dhihi karaan waaba muslimkii ay yaqaaneen way u jeedaan. waxay waceen waalidiintii, waxay dhaheen kaaliya meel hebel inoogu yimaada. kadib waalidiintii way yimaadeen. markay yimaadeen kadib waxaa la tusiyey wiilkooda muslim. waalidiintii markay arkeen aaday u yaabeen, way fajaceen sababtoo ah wiilkooda iyaga ayaa gacantooda ku duugay. waxay dhaheen kan hadduu muslim yahay waaba wiilkeena u jeednaaye, qofka aan dugnayn yuu yahay. waalidiintii aaday u yaabeen, waxay la yaabeen wiilkan hadday u jeedaan iyo midka ay duugeen. marka iyagoo xaaladaa ku jira waxay arkeen maamo iyadana meesha joogtoo aad oynaysa oo ku dhowaad isbuuc wiilkeeda raadinaysay. kadib maamadan iyo muslim hooyadiisa ayaa sheekaystay. marka maamadan waxay u sheegtay in ay wiilkeeda muddo raadinaysay. waxayna dhahday wiilkaaga Muscab iyo wiilkeyga aaday isugu eg yihiin, laakiin waxay dhahday maamadii waan ku xumaa wiilkeyga ma ahan. kadib muslim hooyadiisa ayaa waxay dhahday kan waa wiilkeyga muslim, laakiin waxay dhahday arrin ayaan kuu sheegayaa. oo waxay dhahday anaga waxaan u malaynay wiilkeena muslim inuu dhintay, laakiin hadda waxaa nala soo sheegay inuu nool yahay, waana kanaa wiilkeyga waan u jeedaa. laakiin waxay dhahday intaysan arrintan dhicin ka hor anaga waxaan aasnay wiil kale. wiilkaasna waxay dhahday wuxuu aad u ekaa oo u shabahay wiilkeyga muslim. marka wiilkeyga muslim ayaan u malaynay, sidaa ayaan u dugnay. marka waalidiintan waxay ka fiireen bis dhirirkiisa iyo qaabkiisa, sababtoo wejigiisa waxa uu dhacday xabad, wayna fahmi waayeen. waxay sidaan marka wejigiisa macnaa xabadii ayaa sidaan u gashay, laakiin inta kale waa isaga. marka waxay u maleeyeen wiilkooda Muscab. marka wiilkay duugeen ma ahan wiilkooda Muscabe ee waa maamadan meesha taagan wiilkeeda. maamadan oynayso oo isbuuc wiilkeeda raadinaysay ay iyaga duugeen. ayaga waxay u duugeen in uu yahay wiilkooda Muscab, laakiin wiilkooda Muscab ma ahne ee waa wiil kale. maamadan meeshan joogto oo wiilkeeda isbuuc raadinaysay ayaa dhashay. marka meesha waxay noqotay family in ay farxaan, family in ay murugoodaan. familka farxay waxay ahaayeen muslim familkiisa oo dhowr maalin ka hor wiilkooda u haystay inuu geeriyooday, xitaa tacsi u dhigtay. laakiin ugu dambeyn waxay ogaadeen wiilkooda inuusan geeriyoon oo ay ku qaldeen wiil kale. dhanka kalena waxay murugo ahayd maamadii kale oo wiilkeeda muddo isbuuc raadinaysay. ugu dambeynna familkan u xaqiijiyeen in ay iyaga duugeen wiilkeeda, xitaa ay tacsi u dhigeen. marka saaxiibayaal, marka aan sheekada bilaaway waan idin sheegay, waxaan idin dhahay ma maqli jirteen qof dhintay haddana soo noolaaday. marka wiilkan sida oo kale waaye, macnaa waxaa loo haystay inuu dhintay, waa la duugay, tacsi ayaa loo dhigay, haddana arrintan lama filaanka ayaa dhacday. marka waxaan dhihi karnaa qof dhintay oo soo noolaaday, ma dhihi karnaa mawduuc ma dhihi karnaa sheekadeena. marka saaxiibayaal, wiilkan sidaa ayuu isagana ku badbaaday, wiilkan kalena sidaa ayuu ku dhintay. marka waalidiintan wixii isku khaldeen, labadii qof ay isku khaldeen. marka maamadan masaakiinta ah waa qalbigeeda alla u qaboojiyo. dabcan hadda qisada waxaa ka soo wareegatay 5 sano meelahaas. waxa waaye koley waa iska hooy, way iska xasuusan doontaa wiilkeeda, allah u naxariisto. marka saaxiibayaal, sidaan waaye, mararka qaar waxaa laga yaabaa in qofkaaga u malaysay aad duugato ama aad u qaadato inuu dhintay. tusaalahaan dad qaar oo fiiri Liibiya oo lasoo sheegay la dhahay hebel waa dhintay waxaas, ugu dambeyn waxaa la arkay in ay soo hadleen. marka mar walba waxaa aad u wanaagsan in qofkaaga aad si fiican u hubsato, inaa ogaato inuu isaga yahay, kadibna aad sidaa qofkaaga ku dugato. marka saaxiibayaal, sheekadeena ama muuqaalkeena caawa waa inaga intaa. inkastoo ay iska ahayd sheeko kooban, haddana waxaan rajeynayaa in aad wax un ka faa'iideen. marka saaxiibayaal, inta aynu muuqaalka dib u kulmi doono, ammaano alle. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.